السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والجمعة شنطة بشا جون سنتك لبكن لباتن يلح أو كوباغن سقالية طبانك بشا دلحجة سنتك كن أفر بقول أفرتن يتضبا تاريخ ذي هجرية كسو دوادا مركله هي برامجكي ورارك مانتا قضبضا عن ذي كوبها إننا وحا كمدا madhaba in sirdoonka Israa'iil iyo ciidamada Azerbaijan ay hawlgalo qarsoodiyaha ka fuliyeen gudaha dalka Iiraan muxuu ahaa ujeedka arrinkaasi looga gol lahaa maxay arrintan ka tiri dawladda Azerbaijan mise jira war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Israa'iil warbixin iyo falaqayn arrimahan ku aadan ayaan idinku soo gudbinaynaa qaybta dambe ee barnaamijka wararka kalena waxaa ka mid ah dagaallo culus iyo duqeymo u dhaxeeya Xisbullah iyo Israa'iil oo ka socda koonfurta Israa'iil wasiirada arrimaha gudaha ee Pakistan iyo Iran oo yeeshay kulan xasaasi ah xilli Islamabad dhexdhexaadin ay ka dhex wado Washington iyo Tehran Iran oo ku jeestay Jarmalka oo waayay kursiga gudaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si adag u baadigoobay Mareykankuna waxay cunaqabatayn ku soo rogeen madaxweynaha waddanka Cuba dhamaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta Imara Luxury Homes dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo guryo dublekiisa iyo kuwo penthouse ah guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo xaafad gaar ah ay u baahan tahay waa laba dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo dhawaana soo idlaan doona dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxaana ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxaana ku yaala Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Dennisbridge Road faafahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda ku soo dhawow qaari online qarni hore waxaa jiray barashada quraanka qofku u dhaqaaqo dugsiyada qiraa'ada hadda waa qaab online ah qaari online waxa uu bixiyaa barnaamij dhammaystiran oo ay dhigayaan macallimiin leh in ka badan khibrad 5 sano ah oo ay wax barayeen carruurta ku nool dibadda tiyoo la adeegsanayo hab waxbarasho oo ku habboon deegaanka reer galbeedka waxaana uu bixiyaa tijaabo bilaash ah oo 7 maalmood ah iyo casharro waxbarasho oo bilaash ah haddaba qabso tijaabadaada bilaashka adigoo la xiriiraya WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda ama maantaba ka diiwaangeli ilmahaaga qaari online soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka jimca mubaarak ayaan idin leenahay meel walba waa joogtaan maanta waxaynu barnaamijka ku hormaraynaa wararka ugu dambeeya ee dagaalada ka dhex aloosan Xisbullah iyo Israa'iil inkastoo ay socdaan dadaalo nabadeed oo Mareykanku hormuud u yahay isla markaasna saacadihii la soo dhaafay wadahadaladaasi iyo heshiis in la gaaro oo taageeray gudoomiyaha baarlamaanka waddanka Lebanon Nabil Barre oo ay isku mowqif yihiin Xisbullah haddana arrintan waxay ku soo aadeysaa iyadoo hogaamiyaha Xisbullah si adag ugu hor yimid wax heshiis ah in la gaaro laakiin Nabil Barre wuxuu soo jeedinayaa in haddii loo baahan yahay heshiis in la gaaro inay tahay Israa'iil inay ka baxdo koonfurta Lebanon taa beddelkeedina dagaalamayaasha Xisbullah ay yimaadaan dhanka waqooyi oo ay soo dhaafaan webiga Litani oo Israa'iil arrintii ay ku doodayso wuxuuna leeyahay tani waa xalka ugu macquulsan sidaas oo ay tahay dagaallo ayaa soconaya aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada imika socda ururka Xisbullah ayaa sheegay in dagaalamayaashiisu ay fuliyeen saacadihii la soo dhaafay 3 weerar oo ka dhan fariisimada ciidamada Israa'iil ee koonfurta Lebanon bayaano lagu daabacay barta Telegramka ayaa ururka Xisbullah waxa uu ku sheegay inay gantaal ku garaaceen askar Israa'iiliin ah oo ku sugnaa duleedka deegaanka Wadi al-Hujayr oo ku yaala bariga magaalada xeebta ee Suur una dhow webiga Litani ururka reer Lebanon ayaa sidoo kale sheegay in 2 duqeyn oo madaafiic ah lagu beegsaday
goobo ay ku soo urureen gaadiid iyo ciidamo Israa'iiliyiin ah. waxaana ay sheegeen in weerarka uu ka dhacay duleedka magaalada Xadafa ee waqooyiga bari ee magaalada Sur una dhow xadka Israa'iil. weeraradan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Israa'iil ay sii wado duqeymaha xagga cirka iyo madaafiicda ay ku garaacayso deegaano kala duwan oo ku yaala koonfurta Lubnaan. dhinaca kale militariga Israa'iil ayaa ku andacoonaya inay dileen Cabdul Harbi oo ay ku tilmaameen taliye ka tirsan qaybta injineeriyadda ee ururka Xisbullah. weerar dhacay toddobaadkii hore. Xisbullah weliba xaqiijin sheegashada Israa'iil. bayaan lagu daabacay baraha bulshada ee internetka, ciidanka Israa'iil ayaa waxa ay sheeganayaan in Harbi uu ku lug lahaa diyaarinta iyo howlgelinta walxaha qarxa ee lagu beegsanayo ciidamada Israa'iil ee ka howlgala koonfurta Lubnaan. waxaa kaloo ay sheegeen inuu ahaa taliye sare oo ka mid ah Xisbullah kana qayb qaatay dagaalada ka dhanka ah Israa'iil ilaa iyo 2006 ka mid ahaa ururka. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ciidamadooda cirku ay habeennimadii xalay burburiyeen goobo laga tuuro si hadalka loo yiri gantaalada, iyagoo doodaya in dagaalamayaasha Xisbullah ee halkaasi ka rideen gantaalo lagu beegsanayay ciidamada Israa'iil ee ku sugan koonfurta Lubnaan. war kale oo colaadan la xiriira, warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu wasiiradiisa u sheegay kulan xale ay yeesheen inaysan cod u qaadi doonin nuqulka ugu dambeeya ee heshiiska rasaas joojinta Lubnaan ee Maraykanku garhayaanka uu ka yahay ilaa Xisbullah ay aqbasho sharuudaha Israa'iil. sida lagu sheegay warbixinta, wasiirro ka tirsan xukuumadda ayaa dhaliilay xabad joojinta nugul, taas oo wafuudda Israa'iil iyo Lubnaan ay ku heshiiyeen inay cusboonaysiiyaan kulan ka dhacay Washington Arbacadii. waxaana ay dalbadeen in heshiiska la soo bandhigo iyadoo codna golaha wasiiradu ay u qaadayaan. haddii taasi aan la helinna ay tahay in aan la aqbalin. Netanyahu ayaa diiday inuu codbixin qaado, isagoo wasiirada u sheegay in waqti xaadirkan aanu jirin heshiis maadaama Xisbullah ay diidan tahay shuruudaha la soo bandhigay. hogaamiyaha Xisbullah Naciim Qaasim ayaa waxa uu u muuqdaa inuu gebi ahaanba ka soo horjeedo hindisaha xabad joojinta ee Maraykanku dhexdhexaadinayo, isagoo sheegaya in ururkiisa uu sii wadi doono duqeymaha uu ku hayo waqooyiga Israa'iil ilaa iyo inta weeraradu ay ka socdaan koonfurta Lubnaan. waa tahay bariga dhexe aynu ka beyrno oo xaggaas iyo Latin America aynu eegno. waxaa soo xoogaysanaysa xiisada ka dhex aloosan Maraykanka iyo Cuba. tilaba kale ayuu Maraykanku qaaday. aynu eegno war ay tibinayso warbaahinta Maraykanka. wargeyska The New York Times ayaa waxa uu sheegayaa in dowladda Maraykanku ay cunaqabatayn cusub ku soo rogtay madaxweynaha Cuba Miguel Diaz-Canel, iyadoo ay sii xoojinaysana cadaadiska ay saarayso hogaamiyaha jasiiradaasi uu maamulo ee shuuciga ku dhanta. cunaqabataynta cusub ayaa sidoo kale lagu bartilmaameystay xaaska iyo wiilka sodogga u yahay madaxweyne Diaz-Canel iyo xubno ka tirsan qoyska madaxweynihii hore Raul Castro. sidoo kale waxaa lagu daray wasaaradda ciidamada kacaanka, ciidamada Cuba iyo gudiyada CDR ee dowladda taageera. Maraykanka ayaa ku eedeeyay dowladda Cuba inay qatar ku tahay wasiidalka u dhigaya amniga qaranka Maraykanka. madaxweyne Trump ayaa sheegay in Washington ay sii wadi doonto tillaabooyinka ay ku cadaadinayso Havana. Diaz-Canel ayaa dhankiisa ku eedeeyay Trump inuu doonayo inuu xoojiyo go'doominta dhaqaale iyo xiisadda u dhaxaysa labada dal, isagoo sheegay in tillaabooyinkaasi ay waxyeello u geysanayaan shicibka Cuba. wasiirka arrimaha dibadda Bruno Rodriguez ayaa cunaqabataynta ku tilmaamay faragelin iyo tilaabo gardarro ah. Cuba ayaa tan iyo 1962 waxay wajahaysay cunaqabataynta Maraykanka, iyadoo hadda la tacaala koronto la'aan, shidaal yari iyo cunto yari baahsan sababo la xiriira go'doominta Washington. waa tahay waxaynu gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Iiraan iyo Maraykanka. Iiraan oo ku jeestay Jarmalka oo waayay kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaan kaloo idiin haynaa warbixin la yaab leh oo sheegaysa howlgal ay iska kaashadeen ciidanka Azerbaijan iyo sirdoonka Israa'iil ee Mossad oo gudaha Iiraan laga fuliyay.
laakiin intaan idin soo gudbin wararkaas iyo qodobo kale aynu ku hakanno qadar xayeysiina qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub, Ameerika, Asia, Australia iyo Afrika waxay hadda kadib si dhib la'aan ah lacagaha ugu soo diri karaan dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer kuna soo diraya adeegga casriga ah ee eBesa oo ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya hoostagana bangiga caalamiga ah ee IBS eBesa goob kasta iyo goor kasta soo dhawaada markale daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijkii wararka maanta oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter iyo Telegram warbixino qoraal ah warar fahlooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna wajibiyaan oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag imika waxaynu gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisada Mareykanka iyo Iiraan waxay ku adkaysanaysaa Mareykanka in uu aqbalo talabaadka ay dalbanayso dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna waxa uu dalbanayaa inay tahay Iiraan marka hore inay fuliso shuruudaha Mareykanka waxaanu ku adkaysanayaa in wajiga koowaad ee wada xaajoodada laga wada hadlo arrimaha nuclearka laakiin Iiraan arrinkaasi waa ay ka soo horjeeda oo waxay ku adkaysanaysaa saddex qodob waa in la sii daayaa lacagta laga haysto Iiraan ee dibadda lagu xayiray in go'doominta laga qaado oo Mareykanka Hormuusan la furo dekedahana la furo ama laga qaado go'doominta iyo in Mareykanku magdhow ka bixiya weerarka lagu soo qaaday iyadoo la ballan qaadayo dibdib inaan loo soo weerari doonin laakiin Trump wuxuu leeyahay arrinka uraniumka meel aan saarno wadahadalladu halkaas ayay marayaan ilaa haddana waxaa la sheegayaa xaaladdu inay tahay mid aad iyo aad u adag geesta kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegayaa inuu diyaar u yahay inuu la kulmo hogaamiyaha sare ee Iiraan Mujtaba Khamenei waxa kale oo wararka dhanka Iiraan la xiriira ugu dambeeya haddii ay eegno arrimahan iyo saacadihii ugu dambeeyay wararka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Muhsin Naqvi ayaa kulan waxa uu la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ee Iiraan Iskandar Momani intii ay ka qayb galayeen shir ay lahaayeen wasiirada arrimaha gudaha ee wadamada xubnaha ka ah ururka iskaashiga Shanghai ee magaciisa loo soo gaabiyo SCO kaas oo ka dhacay magaalada Bishkek ee dalka Kyrgyzstan kulanka ayaa diiradda lagu saaray xiriirka laba geesoodka ee u dhaxeeya Pakistan iyo Iiraan ammaanka xuduudaha labada dal iyo xasiloonida gobolka labada wasiir ayaa isdhaafsaday aragtiyo ku saabsan sidii loo yareyn lahaa xiisadaha loona xoojin lahaa maamulka iyo ilaalinta xuduudaha isla markaasna waxa looga qaban lahaa caqabadaha wadajirka ee la xiriira amniga gudaha sida lagu sheegay war ay wasaaradda arrimaha gudaha ee Pakistan ku baahisay baraha bulshada internetka labada dhinac ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la sii wado dadaalada dhanka diblomaasiyadda oo si joogto ah loo raadiyo xal waara iyo xasilooni gobolka ka hirgasha labada wasiir arrimaha guduhu waa Pakistan iyo Iiraan waxay carabka ku adkeeyeen baahida loo qabo in si joogto ah loo sii wado dadaalada diblomaasiyadeed si loo xaqiijiyo nabad waarta ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda amuraha gudaha ee wadanka Iiraan dhawaan waxaa dhacday codaynta wadamada cusub oo ku biiri doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee la soo doorto Jarmalku wuxuu raadinayay inuu sanadka soo socdo ku biiro golaha ammaanka isla markaasna ay doortaan golaha guud codayntii ka dhacday haddaba Jarmalku waa waayay kursigii Iiraan ba ku jeesjeesaysa haddaba aynu eegna sheeko cajiib ah oo arrintan la xiriira hagaag afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Iiraan Ismaaciil Bagai ayaa wuxuu sheegay in guuldarrada Jarmalka ee ku aadan helitaanka kursi golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay tahay digniin adag oo uga timid beesha caalamka isla markaasna ka turjumaysa sida ay u sii kordhayso dowlado badan in ay uga niyadjabsan yihiin siyaasadaha Berlin ee ku aadan Israa'iil iyo arrimaha Bariga Dhexe
bagaay ayaa waxa uu sheegay in jarmalka markii ugu horreysay muddo 10 sano uu ku guuldaraystay inuu helo kursigaasi isagoo arrintaasi ku tilmaamay canaan diblomaasiyadeed oo muujinaysa sida beesha caalamka ay u aragto mowqifka dowladda jarmalka sida uu sheegay afayeenko fashilkaasi wuxuu ka turjumayaa buu yiri caro iyo qanacsanaan la'aan sii kordhaysa oo caalami ah oo ka dhalatay wax uu ku tilmaamay mowqifka mas'uuliyad darrada ah munaafiqnimada ah iyo wada shaqaynta dowladda jarmalka ee la xiriirta xasuuqa Gaza ka socda weerarada military ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ku hayaan Iiraan baqay waxa jarmalka uu sheegay inuu yahay mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee Israa'iil siiya hubka wax dila isla markaasna muddo dheer uu difaacayay waxa uu ku tilmaamay xasuuqa shacabka Falastiiniyiinta afayeenka ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in markii Israa'iil bilowday weerarada ay ku qaaday Iiraan dowladda jarmalku ay ka gaabsatay inay cambaarayso tilaabadaasi iyadoo xitaa sidoo hadalka u dhigay si cad u taageertay dunidu way isbedelaysaa buu yiri dowladuhuna maanta kuma qiimeynayaan wadamada hadaladooda ku saabsan qawaaniinta caalamiga balse waxay ku qiimeynayaan ficiladooda dhabta ah ayuu yiri Ismaaciil Bagaay waxa inta uu ku daray in dowladaha iska indhatira isbedeladaasi ay ugu dambeyn bixin doonaan qiimo diblomaasiyadeed oo aad u culus imika waxaynu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo aynu aalaaba ku soo qaadano macluumaadka ay bixiyaan khubarada arrimaha dagaalka istiraatiijiyadda ciidamada diblomaasiyadda sirdoonka iyo siyaasadda sidoo kale xubintan waxaynu ku gorfaynaa wararka ugu waaweyn ee warbaahintu ay daabacdo ama ay baahiso xogtan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa ma dhabba in ciidamo khaas ah oo ka socda sirdoonka Israa'iil ee Mossad iyo ciidanka Azerbaijan ay howlgal ka fuliyeen Iiraan muxuu yahay howlgalkan arrintan maxay ka tiri dowladda Azerbaijan aynu eegno war amuurtan la xiriira wargeyska Israel Today ayaa waxa uu daabacay ciidamo gaar ah oo Israa'iil ah in loo diray Azerbaijan iyagoo fulinaya howlgal qarsoodiya intii lagu jiray dagaalkii dhawaan dhex maray Israa'iil iyo Iiraan sida wargeysku ka soo xigtay warbixin uu baahiyay telefishinka CNN oo isna soo xiganaya ilo xogayaal u ah arrintan sida lagu sheegay warbixinta dhowr iyo 10 askari oo ka tirsan cutubada gaarka ah ee Israa'iil iyo saraakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka Mossad ayaa la geeyay goobo kala duwan oo ku taagsan xadka u dhaxeeya Azerbaijan iyo Iiraan qaar ka mid ah goobahaasi ayaa ku yaala masaafo ilaa iyo 96 kilomitir u jirta magaalada Tabriz ee ku taal waqooyiga Iiraan warbixintu waxay sheegtay in ciidamada loo diray Azerbaijan markii hore loogu talagalay inay noqdaan koox samata bixin degdega haddii diyaaradaha dagaalka Israa'iil lagu soo riday gudaha Iiraan si kastaba ha ahaatee howlgalka ayaa markii dambe la ballaariyay waxaana lagu daray ururinta xogta sirdoonka iyo howlgallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasi u suurtageliyay Israa'iil inay kordhiso baaxadda iyo awoodda weerarada mid ka mid ah howlgallada ugu muhiimsan ee la sheegay in Israa'iil ay ka fulisay gudaha Azerbaijan ayaa ah dilka taliyaha qaybta howlgallada gaarka ee ciidanka kacaanka islaamiga ah ee Iiraan Rahman Muqaddam sida CNN-ku ay ku sheegtay warbixinteeda Muqaddam ayaa waxa la sheegay inuu mas'uul ka ahaa qorista iyo tababarka howlwadeena ka howlgelayay gudaha iyo dibadda Iiraan waxa kaloo lagu eedeeyay in uu ku amray xubnahaasi inay ururiyaan xog sirdoon oo ku saabsan hogaamiyaasha siyaasadda Israa'iil saraakiisha amniga saldhigyada military ee Israa'iil iyo kuwa reer galbeedka dekadaha iyo maraakiibta Israa'iil ee ku kala sugan daafaha dunida dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Azerbaijan ayaa si adag u baahisay warbixin ay baahisay warbaahinta gaar ahaan telefishinka CNN oo sheegaysa in dhulka Azerbaijan loo adeegsaday howlgallo military oo kanan ah Iiraan iyo in ciidamo Israa'iiliina lagu daabulay ama la geeyay gudaha waddankaasi bayaan maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Azerbaijan ayaa waxaa lagu sheegay in eedeymahaasi ay yihiin kuwa aan san lahayn isla markaasna aysan jirin wax xaqiiq ah oo taageeraya sheegashada ah in dhulka Azerbaijan loo isticmaalay howlgallo kalena jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan ama ciidamo Israa'iil ah inay ku sugan yihiin halkaasi waxaan si cad u beeninaynaa sheegashooyinka CNN ee ah in dhulka Azerbaijan loo adeegsaday howlgallo kalena ah Iiraan iyo in ciidamo Israa'iilina la geeyay gudaha dalka ayaa lagu yiri bayaanka wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay inay ka filayso CNN inay si rasmi ah u noqoto warbixinada ay daabacday uga noqoto isla markaasna waxa ay sheegtay in ay eedeymahaasi yihiin
kuwa aan sal iyo toona lahayn. waa tahay inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii wararka maanta. waxaad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha allah. inta ka horeysa, salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. adeegga maamuus ee shirkadda hormuud waa xirmooyin adiga kuu gaar ah oo ka kooban internet keliya, ku hadal keliya, ama internet iyo ku hadal wada jira. naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees. ku soo dhowow Safari Remit, warkii ugu mudnaayo weliga aad maqashaan hadda ku warramaya ee kaalay u hesho Safari Remit. haddii aad ku nooshahay dalka UK, Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo weliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay. macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda. isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan, waxaana kaa xigta inaad booqatid www.safariremit.com. waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga, mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto. Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK, mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika. Safari Remit, rugta lacag dirista ugu fudud, baahi tiraha baahi loo qabay. Safari Remit.